waddanku wuxuu ku tillaabsaday digital. Sidaa la soconno, waqtiyo fara badan waxaa laga soo shaqaynayay digitalka dalka, waxaana mas'uuliyaddaasi qaatay private sector-ka oo aad iyo aad horumar la taaban karo uga qabtay hadday ahaan lahayd telecomka, hadday ahaan lahayd financialka, hadday ahaan lahayd digitalka kaleeto. Waxaan halkan ka xusayaa shirkaddii ugu horreysay ICT Solution, Tabarak ICT Solution. I hope inay halkan fadhido. Waqti aanan waddanku uusan jirin digital wax ka shaqeeya inay ayagu qaateen roolkaas, sustainable-na ay ka dhigeen. Arrintaasi waxay muujinaysaa in wax waliba markii loogu fikiro sidii loogu talagalay iyo baahi jirta laga jawaabayo inay noqon doonaan wax waara horta. Taasaa horta noo ah tusaale. Haddaan u gudubno dhanka dowladdu waxay qaadatay digital DBI infrastructure-ka inay ka shaqayso. DBI-na wuxuu aad iyo aad muhiimad ugu leeyahay in loogu shaqeeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed aanay gaari karin adeegga service-ka in loo soo dhoweeyo oo service-ka ay noqdaan ayagoo meeshooda jooga inay ka isticmaali karaan. Sababaha keentay waxay tahay in laga hortago musuqa, in laga hortago cadaalad darrada iyo mataqaanay dadka taagta daran ee aanan awoodin inay gaaraan adeegyadaasi. Waxbarashada in lagu fududeeyo, ganacsiga in lagu fududeeyo, dhammaan in loo soo dhoweeyo adeegyadaas. Sidaas daraaddeed, annagu haddeertaan waxaan hadda qabanqaabadiisa aawadnay DBI Forum oo aad la socotaan inuu mar dhow qabsoomi doono, kaasoo haddeertaan lagu dardargelinayo dhammaan hay'adaha dowladda in laisku xiro kaabayaasha digitalka. Private sector-ku almost wuu ka soo shaqeeyay adeeggaas, wuuna isku xiran yahay inta badan, laakiin baahida hadda jirta waxay tahay in la gaarsiiyo in digitalka laga dhigo hay'adaha dowladdana gacantooda la geeyo ama loo dhoweeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed. Taasuna waxay maraysaa meel wanaagsan. Hay'adda DBA oo ah hay'adda dhowrista xogta dadweynaha waxay ka mid tahay qaybaha aad iyo aadka ugu muhiimka ah oo ka shaqaynaya arrimahaas ayadoo la shaqaynaysa private sector-ka iyo public sector intaba. Hay'adda DBA waa hay'ad u taagan dhowrista xogta dadweynaha lana shaqaynaysa dhammaan adeegyadaasi aan soo sheegnay. Waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad inaan ka soo qaybno kulankan qiimaha badan, annagoo qayba ka ah horumarka dalka uu ku tillaabsanayo. Waan idinkaga mahad celinayaa, waan idinku bogaadinayaa guusha aad gaarteen iyo horumarka. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.